asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhawaada maanta waxaan ka hadlaynaa sida kanool loo xiro oo bukaanada sida qaabka kanool loo geliyaan ka hadlaynaa markaad kanool qof aad gelinaysid maxaad u baahan tahay qalabkaad u baahan tahay maxaa waaye waxyaabahaad u baahan tahay waxaa ka mid a kow inaad soo diyaarsatay canula labo inaad soo diyaarsatay canula dressing oo sharootada lagu xiraayay alcohol swab oo ah jeermis dilihii iyo tourniquet oo ah xiriga lagu xiraayay so qodobka ugu horeeya waxa waa marka ugu horeyso meesha waxaad ku xiranaysaa xirigaad ku xiranaysaa tourniquetkii kadib waxaad garaacaysaa qaybta aad rabtay inaad kanoolka ku xirto si xididka kugu soo muuqdo waayo dhiig badanaa soo galaya xididka muuqaal ahaan uu kusoo muuqanaa kadib waxaad soo diyaarsanaysaa canoli markaad soo diyaarsatid qaybta furka meelaad dhiganaysaa si hadhow ay kugu fudaato inaad si fudud aad furka ugu xiran kartid oo bukaankan uusan dhiig kaaga bixin kadib waxaad meesha ku sameynaysaa clean the side meesha waad nadiifinaysaa oo jeermisilad ku sameynaysaa ilaa inta ay ka qalalaysan u sugaysaa kanaalkaas soo qaadanaysaa si tartiib ayaad u gelinaysaa adigoo xididka ku toosinayo oo 10 ilaa 30 degree adigoo ku raadinaya kadib waxaad fiirinaysaa inuu dhiig soo raacay waxaad ka saaraysaa needle-kii gadaal ayaad u saaraysaa kadib furkii aad soo qaadanaysaa waad ku xiraysaa markaad ku xirtay kadibna waxaad soo qaadanaysaa sharootadii ama canola dressingkii si aad ugu adkaysid oo kanoolka uusan kaaga bixin bukaankan uu safe u kaaga noqdo waayo haddii kanoolka mar walba uu nunuxsado bukaanka xanuun badan uu dareemaya saar kadib ku adkeey si sharootada dhinacyada ay ugu dhegto qaybta kale haddana soo qabo kafiiq kuna dheji si qurux badan maasha allah kadib kanoolka wuxuu ku noqonayaa mid adag oo safe ah bukaankan uu ku raaxaysanaya aad u mahadsantihiin haddaad muuqaalka hal share gareeyo waxa waaye waa waxa inooga dhiman 5k waa wax yar waaye la wadaag asxaabtaada subscribe saar gambalelka fur aad u mahadsantihiin